madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tagay wadanka Uganda jimcihii isagoo la kulmay dhigiisa Uganda Yoweri Museveni. Booqashadan gaarka ayaa daarneed arrimo ku saabsan howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa doonayay inuu ciidanka Uganda ay la wareegaan fadhiyada ciidanka Itoobiya oo qaybo ka mid ah ay yihiin gobolka Bay iyo gobolka Bakool iyo sidoo kale gobolka Gedo. si gaar ah goobaha uu Xasan Sheekh Maxamuud xiiseenaya waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo iyadoo hadafka ugu weyn uu yahay mid siyaasadeed. Itoobiya in ay dhawaan aqbashay in ay ka baxdo magaalada Baydhabo kadib cadaadis uga yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. balse hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa isna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ku cadaadinayo in uu ka leexdo Itoobiyaanka joogo magaalada Baydhabo. arrintan ayuuna dhawaan kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya. warar ay soo dusinayaan xubno ka mid ah wafdiga Xasan Sheekh Maxamuud u raacay wadanka Uganda ayaa inoo xaqiijiyay in madaxweynaha Uganda uu ka cagdiiday in ciidankiisa la geeyo meelo si waaweyn uga fog magaalada Muqdisho. haddii uu ciidankeena uu dagaal qabsado ma heli karno gurmadyo degdeg ah, dalkan iskuma furno, ciidan yar oo diyaarada lagu qaadayna kuma filna gurmad. hadalkaas ayuu ku dooday Yoweri Museveni. waxaa la sheegay in Yoweri Museveni uu kula taliyay madaxda dowladda ee federaalka ee Soomaaliya inay ciidamada Kenya iyo kuwa Itoobiya u dhaafaan goobaha ay hadda joogaan maadaama ay u dhow yihiin xadkooda oo ay heli karaan gurmadyo degdeg ah, faham fiican ay ka haystaan bulshada goobahaasi ku nool. madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladda Soomaaliya ma soo qaadanin jawaab qancisa, waxaana la warinayaa in mar kale dalab cusub ay ka fakarayaan. jawaabta dhinaca Uganda faa'iido fiican ay u tahay Laftagareen oo isaga ayaa haatan ololo ugu jiro inay Itoobiyaanka ay sii joogaan magaalada Baydhabo. Laftagareen oo uu sugayay in ay Xasan Sheekh Maxamuud uu ka noqon doono go'aanka uu Itoobiyaanka kaga saarayo magaalada Baydhabo ayaa hadda faham fiican ka haysto inuusan codsigaasi wax weyn uusan ka joogin dhinaca Xasan Sheekh. ogaanshaha Laftagareen ee ah inuusan Xasan Sheekh qaaday ilaaba lid ku ah codsigiisa ayaa la aaminsan yahay in ay labada nin dhex dhigi karto shaki cusub oo siyaasadeed. howlgalka cusub ee Azam ayaa doorkan xulashada ciidanka iyo goobaha hab iska leh dowladda federaalka ee Soomaaliya welina si fiican uma bilaabanin. haddaba sidee u aragtaa adiga?